kulanti wacan wanaagsan khiyaar ku soo dhawaada qodobadii ugu xiisaha badnaa sheekooyinka ciyaaraha haddii aad ku cusub tahay janaalka fadlan subscribe gamleelkana riix isagoo ku soo gaara hadba warbixinadii ugu dambeeyay ee ciyaaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska ayaa ka warqabta dalabyadii ugu dambeeyay qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka Ingiriiska oo aad markaa u xiiseynaya xidigooda Harry Kane kabtankan ee xulka qaranka wadankaasi Ingiriiska Harry Kane ayaa wuxuu ka mid noqonayaa waryahanada ugu hadalhaynta badan ee dhinaca suuqa iyadoo koox walbana ay haminayso inay ciyaaraankaasi milkiyadiisa ay la wareegto waxaana laacibkan Harry Kane lagu qiimeynayaa dunlacageed gaaraya 200 milyan oo lacagta ganiga waxaana waqtiga kan xaadirka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ay ka warqabaan kooxaha ka dhisan horyaalka Ingiriiska sida Manchester City, Manchester United iyo kooxda kubadda cagta Liverpool saddexdaasi kooxood ee aadka ugu xifaaltamaan horyaalka wadankaasi Ingiriiska ayaa ka mid ah kooxaha sida gaarka u daneynaya in xidigaasi ay ka ambabixiyaan istaadiga kooxdaasi maadaama toddobaadkii ugu dambeeyay Harry Kane aad loola xiriirinayo dhaqaaqista horyaalka wadankaasi Isbaanishka oo dalabyo ka soo gaaray labada kooxood ee horyaalkaasi sida weyn uga xifaaltamay Barcelona iyo Real Madrid laakiin waxay kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ay baqdin xoogan ay soo wajahday kadib markii Liverpool ay ku soo biirtay loolanka xidigaasi Harry Kane kooxaha kubadda cagta Manchester City, United iyo Liverpool ayaa hadda ah kooxaha ugu dhow ee aadka markaa loola xiriirinayo xidigaasi Harry Kane haddii uu go'aansado mustaqbalhan inuu ka soo dhaqaaqo kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ciiraankii hore ee xulka qaranka wadankaasi Brazil ee Rivaldo ayaa Kylian Mbappe kula taliyay inuu u dhaqaaqo horyaalada Ingiriiska ama Spain midkood haddii uu doonayo inuu noqdo guuleystayaasha xidigaha dunida sida Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo Rivaldo ayaana markaa sheegay dayarkan u dhashay wadankaasi Faransiiska Kylian Mbappe inuu yahay xidig tayadiisu ay aad u sareyso waana laacib mucjiso waana xidig waqtiga kan xaadirka bakalo u furayo kubadda cagta waxaan kula talin lahaa haddii uu doonayo in marka uu noqdo laacib markaa ku guuleysan kara abaalmarinada xidigaha adduunka sida Messi iyo Ronaldo oo 10 sano ugu dambeeyay ku guuleysanaya abaalmarintaasi waxaan kula talin lahaa inuu u dhaqaaqo horyaalka Ingiriiska iyo sidoo kale Spain laacibkan kamid ah ciyaartooyda ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee horyaalka wadankaasi Faransiiska Kylian Mbappe ayaa in muddaha aad loola xiriirinayo kooxda kubadda cagta Real ay ka dhisan horyaalka wadankaasi Isbaanishka balse Rivaldo ayaa markaa aaminsan haddii ciyaaryahankaasi qaab ciyaareedkiisa uu wareejiyo horyaalada Spain ama Ingiriiska Kylian Mbappe cid kama xigto in markaa uu noqdo laacibka dunida ugu wanaagsan sanadaha soo socda maxaa yeelay waxa uu sheegay in labadaasi horyaal oo Kylian Mbappe kaliya uu ku muteysan karo abaalmarinada sanadii ugu dambeeyay ku guuleysanayeen Ronaldo iyo sidoo kale Lionel Messi dayarkan u dhashay wadankaasi Faransiiska Kylian Mbappe ayaana markaa kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain toddobaadkii ugu dambeeyay waxay xaqiijiyeen in xidiga uusan ka dhaqaaqi doonin magaalada Paris ee wadankaasi Faransiiska xidigii hore ee kooxda kubadda cagta Monaco ee Kylian Mbappe ayaana markaa la aaminsan yahay in ciiraanku aad u xiiseynayo u dhaqaaqista magaalada Madrid kadib markii xiriir gaaban uu la yeeshay madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Florentino Perez isbedel waliba Rivaldo waxa uu kalsooni weyn ku qabaa haddii Mbappe uu soo dhaqaaqo Ingiriiska ama Spain in uu noqon doono laacibka dunida ugu wanaagsan sanadaha soo socda warbaahinta wadankaasi Talyaanigana waxay aad u hadalhayaan sheekada ku aadan kooxda Juventus oo haaminaysa inay la soo wareegto wiilka reer Brazil ee Neymar Jr waxaana kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ay shalay galinkii dambe ay ku dhawaaqeen inay hamin doonaan u dhaqaaqista xidiga reer Brazil ee Neymar Jr ee markaa u ciyaaraya kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayadoo la leeyahay kooxda kubadda cagta Juventus waxay caqabad xoogan ay kala kulmi karaan kooxda kubadda cagta Barcelona oo isku dayi karta sanadka cusub ee 2020 foodi nagu sahaysa in ciyaaryahankaasi dalabkiisa ay soo rogaal celiyaan balse kooxda reer Talyaani Bianconeri Juventus ayaa damac xoogan kaga jira ayadoo la leeyahay Juventus waxa ay kula soo wareegi kartaa xidigaasi Neymar Jr dulcageed gaaraya 300 milyan oo lacagta ganiga jirada Gazzetta dello Sport ayaana shaacinaysa in madaxda sare kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ay ku soo biireen waqtiga kan xaadirka loolanka ku aadan xidigaasi Neymar sanadka cusub gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi oo markaa uu sheegay inuu diyaar u yahay xidigaasi Neymar inuu ka ambabaxo magaalada Paris ee wadankaasi Faransiiska maadaama kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain Neymar Jr ugu fadhiyo adul cageed gaaraya 222 milyan oo lacagta ganiga balse waxa uu sheegay haddii lacagahaasi in ka badan ay ku helaan xidigaasi Neymar uu isaga dhaqaaqi doonaa kooxda kubadda cagta PSG haddaba kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa waxay kula soo biirtay dalabka xidigaasi Neymar kooxaha kubadda cagta Real Barcelona labada Manchester ee ka dhisan Premier League
maxaa yeelay waxa ay kooxda kubadda cagta Juventus ay kalsooni weyn ku qabaan xidigaasi Neymar inuu ku wanaagsan yahay in uu markaa ka garab ciyaaro ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ee horyaalka wadanka Talyaaniga gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Napoli Aurelio De Laurentiis ayaa dhinaca kale xaqiijinaya inay la soo siixan doonaan xidiga kooxda kubadda cagta ee LA Galaxy Zlatan Ibrahimovic لاعبkii hore kooxda kubadda cagta Manchester United Ibrahimovic ayaa bisha December ka soo anbabaxi doono horyaalka MLS-ka wadankaasi Mareykanka asagoo si maldahan marka uu sheegay ciyaaraanku inuu dib ugu laaban doono sirada wadankaasi Talyaaniga dhowr kooxood ayaa durbadiiba u soo qalab qaatay 38 jirkan ee u dhashay wadankaasi Sweden Ibrahimovic ayaa gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Napoli Aurelio De Laurentiis waxa uu xusay in ciyaaraankaasi uu noqon karo mid awood leh inuu ku soo biiro kooxda kubadda cagta Napoli waan u baahanahay Ibro maxaa yeelay waa ciyaaryahan khibradiisu aad u sareysa waxaan doonaynaa muddada gaaban uu doonayo inuu ciyaaraha soo gabagabeeyo inuu ku qaato kooxda kubadda cagta Napoli waxaana Aurelio De Laurentiis uu kalsooni weyn ku qabaa in xidigaasi Ibrahimovic haddii uu go'aansanayo soo dhaqaaqista horyaalka wadankaasi Talyaaniga inay gacmo furan ay ku soo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta Napoli ay u tahay koox markaas sida gaarka uu maamulan karo Ibro qaybteeda weerarka waxaan u ballan qaadi doonaa in Ibro uu noqon karo xidig mar walba boos joogta ka heli kara kooxda Napoli waxaan rajeyn doonaa inaan ku guuleysan doono sanadka cusub xidigaasi Zlatan Ibrahimovic oo ka soo dhaqaaqi doono horyaalka wadankaasi Mareykanka bisha December kooxda ka dhisan horyaalka wadankaasi Faransiiska Paris Saint-Germain ayaa aad markaa u doonaysa inay la soo wareegto daafaca daad yar ee kooxda kubadda cagta Chelsea ee Triga waxaana madaxda sare kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ay doonayaan 19 jirkaani inuu noqdo mid u soo dhaqaaqa magaalada Paris ee wadankaasi Faransiiska maadaama waqtigan xaadirka Chelsea aysan ka faa'iideysanin daayirkaasi waxaana ay u ballan qaadayaan in laacibkaasi uu noqon karo xidig mustaqbalkiisa kubadda cagta uu ku soo bandhigi karo horyaalka liigwanka wadankaasi Faransiiska madaxa ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaana markaa rajeynaya in sanadka cusub isku day xoogan ay sameyn doonaan si laacibka kooxda kubadda cagta Chelsea Trick marka ay kala soo wareegi doonaan geegada Stamford Bridge Manchester United waxa ay baadi goobaysaa inay la soo wareegaan xidiga kooxda kubadda cagta Borussia Mönchengladbach laacibkani qadka dhexe kaga ciyaaraya ee Danis Zakaria waa ciyaaryahan si weyn kaga dhex muuqanaya kooxda kubadda cagta ee Mönchengladbach ee horyaalka wadankaasi Germany waxa sidoo kale la leeyahay wuxuu ka mid noqonayaa xidigani Danis Zakaria ciyaartooyda da'da yar uguna saameynta badan markii loo eego suuqa kala iibsiga bisha January ee sanadka 2020 ay food inagu soo haysa xidigan Zakaria ayaa markaa lagu qiimeynaya adduun dhan 50 milyan oo lacagta ganiga oo dollar markaa u dhiganta 56 milyan waxaana Danis Zakaria la leeyahay waxa aad markaa u xiiseynaya kooxaha kubadda cagta Inter Milan Borussia Dortmund iyo Tottenham Atletico Madrid lamaan kooxaasina waxay ka mid yihiin kooxaha bartaameedka ka dhiganaya xidigaasi Zakaria balse madaxda sare kooxda kubadda cagta ee Borussia Mönchengladbach waxa ay qabaan fikir ah in ay qiimihiisa sare u qaadaan si ay xidigaasi ay ugu helaan lacag aad u fara badan maadaama kooxaha kala duwan ee ka dhisan qaaradda Yurub ay bartilmaameed ka dhiganayaan xidiga da'da yar ee kooxda Borussia Mönchengladbach ee Danis Zakaria Barcelona wali waxa ay raajicinaysaa damacna kaga jira in ay markaa la soo wareegto laba ciyaaryahan ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Inter Milan ee Skriniar iyo Diveja labadan ciyaaryahan ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaana markaa loo arkaa inay ku wanaagsan yihiin inay u soo dhaqaaqaan Stadio Camp Nou kooxda kubadda cagta Barcelona bisha January markuu dib furmo suuqa iibsiga ciyaartooyda agaasimaha kooxda kubadda cagta Barcelona ayaana markaa laga soo xiganayaa in qorshihiisa uu tilaabo horumar leh u qaadi karo labadan ciyaaryahan ee dhinaca difaaca ka ciyaara kooxda kubadda cagta ee Inter Milan Stevan Divic iyo sidoo kale Milan Skriniar labadan ciyaartooy waxay ka mid yihiin ciyaartooyda ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta ee Inter ee horyaalka wadankaasi Talyaaniga maadaama kooxda kubadda cagta Barcelona ay doonayso inay dib habeen xooggan ku sameyso qaybteeda dambe ee difaaca waxa ay u arkaan inay ku wanaagsan yihiin in kooxda kubadda cagta Barcelona yimaadaan labada ciyaaryahan Divic iyo sidoo kale Skriniar balse Inter Milan ma aqbali doontaa in ciyaartooydaasi markaa ay soo fasaxdo maadaama kooxda kubadda cagta Barcelona baahi xooggan ay u qabto inay wax weyn ka bedesho qaybteeda dambe ee difaaca oo cabasho xooggan markaa kaga timid waqtigan xaadirka Divic iyo sidoo kale Skriniar ayaa ka mid ah ciyaartooyda ugu adag ee dhinaca difaaca waxaana ay u arkeen in shaqada adag markaa kooxda kubadda cagta Barcelona wax weyn markaa ay ka bedeli karaan xilli markaa uu ka dhaawacan yahay wiilka reer France ee Samuel Umtiti
oo markaa iyana laga yaabo in xidiga macquul ay tahay inuu ka dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Barcelona xilli ciyaareedkani agaasimaha kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa sidoo kalena aad u raajicinaya damciisa ku aadanaa labada ciyaaryahan ee Matic iyo Vidal labadan ciyaartooy ayaa u kala safan kooxaha Barcelona iyo Manchester United jirada Gazzetta dello Sport ayaa soo xiganaysa labadan ciyaartooy ee Arturo Vidal iyo xidiga Nemanja Matic inay yihiin ciyaartooy markaa u dhaqaaqi kara kooxda kubadda cagta Inter ee horyaalka wadankaasi Talyaaniga aragti ahaan waxaa loo fiirinayaa xiriirada kala duwan ee maamulka kooxda kubadda cagta Inter Milan ay la sameeyaan labadaasi ciyaaryahan Manchester United waa macquul inay soo fasaxaan xidigaasi Matic halka Vidal uu sheegay hadii ay u dhadham weyso qorshaha kooxda kubadda cagta Barcelona uu diyaar u yahay inuu dib ugu soo laabto sirada wadankaasi Talyaaniga kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa markaa u aragta in labadaasi ciyaartooy ay wax weyn ka bedeli karaan qaybta qadka dhexe kooxda kubadda cagta Inter Milan Arturo Vidal iyo xidiga kooxda Manchester United ee Nemanja Matic sanadka cusub ayayna rajeynaysaa kooxda kubadda cagta Inter Milan in ciyaartooydaasi markaa ay la soo wareegto ugu dambeyntii waxaan idin soo gudbinayaa 10 ciyaaryahan ee adduunka ugu qaalisan waxaana horkacaya wiilka reer Brazil Neymar Jr waxaana kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ciyaaryahankaasi ay kula wareegtay sanadkii 2017 Abdulcageed gaariya 222 milyan oo lacagta ganiga xilligaas uu ka soo ambabaxay kooxdiisa hore ee Barcelona waxaana kalanta labaad ku jira Kylian Mbappe oo kooxda Paris Saint-Germain markaa ay kula soo wareegtay Abdulcageed gaariya 145 milyan oo lacagta ganiga ah oo sidoo kale la raaciyay adduun dhan 35 milyan waxaana kaalin saddexaad ku jira xidiga lagu magacaabo Felix oo markaa kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ay waqtigan xaadirka kula soo wareegtay Abdulcageed gaariya 126 milyan oo lacagta ganiga waxaa lambarka afraad ku jira Philippe Coutinho oo kooxda kubadda cagta Barcelona Liverpool kaga soo iibsatay Abdulcageed gaariya 120 milyan oo lacagta ganiga oo la raaciyay adduun dhan 40 milyan waxaa shanaad ku jira Anton Griezmann oo kooxda kubadda cagta Barcelona Atletico Madrid markaa ay kala soo wareegtay adduun lacageed gaariya 120 milyan oo lacagta ganiga sidoo kalena waxaa kaalinta lixaad ku jira xidiga Ousmane Dembele oo Barcelona Borussia Dortmund sanadii 2017 kula soo wareegtay Abdulcageed gaariya 105 milyan oo lacagta ganiga oo sidoo kale la raaciyay 45 milyan kaalinta toddobaad waxaa ku jira xidiga kooxda Manchester United Paul Pogba oo ay Man Juventus kala soo wareegtay sanadkii 2016 adduun dhan 105 milyan oo lacagta ganiga kaalinta sideedaad waxaa ku jira Gareth Bale oo kooxda Real Madrid Tottenham sanadkii 2013 kala soo wareegtay adduun dhan 100.8 milyan oo lacagta ganiga kaalinta sagaalaad ee xidiga ugu qaalisan adduunka waxaa ku jira Cristiano Ronaldo oo kooxda kubadda cagta Juventus ay markaa kala soo wareegtay Real Madrid sanadkii 2018 adduun dhan 100 milyan kaalinta tobanaadna waxaa ku jira xidiga ugu qaalisan adduunka Eden Hazard oo kooxda Real Madrid Chelsea kala soo wareegtay isla sanadkaani adduun lacageed gaaraya 100 milyan oo sidoo kale la raaciyay 40 milyan oo lacagta ganiga tobankaas ciyaartooyna waqtigan xaadirka waa tobanka ciyaaryahan ugu qaalisan ee adduunka